ciidanka booliska Puntland iyo kuwa gobolka Mudug oo maalmahan dambe howlgallo lagu adkeynayo ammaanka gobolka Mudug ayaa waxa ay ka wadeen deegaanada dhammaan hoos yimaada gobolka Mudug. deegaanka Bursaalax ee ka tirsan gobolka Mudug ayaa waxa lagu soo qabtay khamri gaaraya 91 dhalo raggii waday iyo gaarigii waday khamrigaas, waxaana loo waday khamrigaas magaalada Gaalkacyo. gaarigii waday iyo raggii waday khamrigaas ayaa waxa ay isku dayeen inay fakadaan, balse waxa gacanta ku soo dhigay ciidanka booliska Puntland iyo ciidanka gobolka Mudug. gaarigii iyo raggii waday khamrigaas markii la soo qabtay ayaa waxa saxaafadda la hadlay taliye ku-xigeenka qaybta booliska gobolka Mudug. Bursaalax eedeedan ku qabanay khamri. hadda meesha waxa taala 100 dhalo oo khamri ah. hadda koor waxaan qabanay 550 dhalo oo khamri ah ku qabanay. waxaan ka raray guryo lagu gadi jiray ma burburin. waxaan qabanay dadkii gadi jiray baan qabanay. meherada xitaa waa la gadi jiray ayaa gudoomiyaha gobolka Mudug wuxuu ugu amray in aan meherada xitaa burburino oo weelkii iyo alaabtii iyo kuraastii iyo miistii aan ka qaadnay annagoo ugu talagalay in aan raad ku reebno dadka ka shaqeeya dhibaatada iyo falfalxumada bulshada. guri lagu gadi jiray waa tagnay, waxaan kala baxnay albaabadii iyo daaqadihii oo saldhiga keenay. wax alla wixii u yaalay ninkii gadi jiray khamriga ugu deganaa waa burburin. hadday aqal ahaayeen, hadday maacuun ahaayeen, hadday jiif ahaayeen, hadday fadhi ahaayeen, waxaan ugu talagalay in raad ku reebto dadka ka shaqeeya bulshada dhibaatadeeda. aad iyo aad ayaan u soo dhaweynayaa saxaafadda Bursaalax maanta loogu hormaro. waa markii saddexaad oo aan nimaano Bursaalax oo aan khamri iyo wax la mid ah ka qabanno. Bursaalax kaliya kuma koobnin gobolka Mudug meel kasta oo looga baahdo oo gobolka Mudug inta xuduudka ku leeyahay oo deegaanka Mudug xuduud ku leeyahay oo khamri iyo xashiishad iyo al-shabaab iyo daraag aw lagu sheego ciidanka booliisku wax ka celinaya mari. waanan istop waxaasna halkaas ka hadlay sargaalkii watay ciidanka howlgalka fuliyay. sidaa daraadeed annagu bahashaan 24 saac baan ku hawshanay. marba ay naga cararaysay, marba ay naga dhuumanaysay, aan iska daba wareegaynay. calaa xaasil waxaan ka soo qabanay xalay habeennimadii 10 habeenimo ayaanu soo qabanay ciidanka booliiska oo aagaan Bursaalax. ciidanka booliiska howlgalkiisu meel allaale meeshii loogu sheego muqaadaraadkaas iyo meel allaale meesha ay la gasho waa ka dabagelayaan haddii ciidanka ilaahay ka dhigo. waxaanu jecelnahay Puntland inaanu ka dabargoyno khamrada wixii kaleeto oo macnaha ahaa ama burcad ama al-shabaab ama kuwa dhulka xaalufiya. awal baanu horey uga dabargoynay, waanu ka xaalufinay. waxaa ka xaalufiyay ciidanka booliiska Puntland. haddii ilaahay idmo khamradaas unbaa hadda sii wararegle iyadana insha allahu biidnillaahi kariim sidaanu ilaahay ka rajaynayno waa ka dabargoynaynaa. sidii taliyihii horeba u yidhi waa markii saddexaad oo aanu gacanta ku dhigno daraagiska hadda hortayada yaalla. insha allah wixii ka dambeeyana ciidanka booliisku goob walba iyo geed walba oo ay joogaan ama ay ku maqlaan dambeyntiina waxaa halkaas ka hadlay gudoomiyaha gobolka Mudug Maxamed Yuusuf Jaamac. sidaan horay u sheegnay Mudug waxa ka socda mashruuc horumar ah oo isbedel ah oo lagu magacaabo Mudug shalay iyo maanta. Mudug shalay bahashaas mubaax bay ka ahayd. markaanu xilka qabanayna waxaanu wacad ku marnay inaan gobolka Mudug ka tirtiri doono khamrada iyo maandooriyaha, sidoo kale inaan ka cirib tiri doono burcadbadeed, inaan ka cirib tiri doono kooxaha argagixisada ee al-shabaab kuwaasoo dadkii Mudug qiimaha lahaa bartilmaameedsaday labeentii iyo waxgaradkii birmageydada ahaana ku laayay. tana waxay ka mid tahay hawsha waxqabadka ciidanka booliska gobolka Mudug. khamradan 9 saac habeenimo ayaa waxa laga soo qabtay xuduudda Itoobiya 2 dambiile iyo gaarigaas oo ay wateen, iyagana cadaaladda ayaa la horgeynaya. xalana ciidanka booliska gobolka Mudug waxa ay leeyihiin dhagarqabaha muqaadaraadka soo gelinaya dalka iyo kan waxa weeye argagixisada iyo kan sidoo kale khamriilaha dhibaatada ka shaqeynaya kan burcadbadeedka. waxa weeye ciidanka booliska waxaan leenahay gudin aflay kula doonayaan geedka gashaba way goynayaan. saacad walba iyo goor walba ciidanku waxay diyaar u yihiin inay amniga sugaan. aad iyo aad baan ciidanka ugu mahad celinayaa. waxaan leenahay dalkeena amnigiisa inaynu ka shaqeyno maamul iyo shacabba waa xil ina wada saaran. maanta waxaynu arkaynaa khamradaanu maaha tii koowaad ee deegaanka Bursaalax lagu qabtay. waa markii saddexaad oo howlgallo ballaaran oo ciidamadu ay sameeyeen maandooriyahan lagu soo qabtay. waxaan leenahay nin walba oo doonaya gobolka Mudug amnigiisa inuu dhaawaco iyo waxa weeye arrimihiisa bulshada inuu dhaawaco waxa u taagan ciidan goob walba iyo goor walba meel walba aad joogtid kugu imaanaya. Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cali, Somali Channel, Gaalkacyo.